Saraakil iyo ciidamo ka soo goostay Jabhada hogaamiye Colonel Carre ee deegaanka Qardho ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta lagu soo dhaweeyay xarunta gobolka Badhan ee magaalada Badhan. Taliyaha ciidanka qaranka ee gobolka Badhan Gure Ismaan Saalax, maayarka degmada Badhan iyo gudoomiyaha gobolka Badhan ayaa ciidankaasi iyo saraakiishii watayba ku qaabilay xarunta maamulka ee degmada Badhan. Waxaana ugu horreyn halkaas ka hadlay qaar ka mid ah ciidanka iyo saraakiisha la soo dhaweeyay. waxaan tagnaa meel la Qardho nin ciidamo ku haysto la yiri magaciisa Carre runtii aanu ma aqoon qofka bini'aadamka in la caayo waa wax mamnuuc ah laakiin ninkaasi wuxuu ahaa markaan qiimeyn military ku sameeyay nin aan ahayn federaalka aanu shaqayn Somaliland aanu shaqayn Puntland aanu shaqayn nin beenaala oo dadka been sheegay oranayo mushaharkeen waa cadceedaas oo kale qoryaheenu waa cadceedaas oo kale gaadiidkeenu waa cadceedaas oo kale waxa uu sheegayana wax ka jira aan jirin mas'uuliyiin badan oo reer Somaliland oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga Ciise Axmed Yuusuf ka mid yahay inuu aflagaadiyo runtii ana ka xaalmarinaya aad baan nagu xumahay dadka islaamka ay xuquuq bay leeyihiin madaxnimada iyo darisnimada xuquuq bay leedahay qofka inuu aflagaado la caayo ma anu isaga ma caayo laakiin nin aan waxba gacanta ugu jirin buu ahaa ciidankii inta ay la socotaa Saraakil baa ku jirta ciidan askarina way ku jiraan intii kalena way imanaysaa ballanqaadkaasina waa mid rasmi ah hadalkan aan ku hadlayaana waa mid runa waana mid xagga dambe ka soo tarmaya maaha mid isdhimaya oo been ay ku jirto. waxaa kaloo iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay maayarka degmada Badhan iyo gudoomiyaha gobolka Badhan iyo waliba taliyaha ciidanka qaranka ee gobolka Badhan Gure Ismaan Saalax waxaana hadaladoodii ka mid ahaa halkan maanta waxaanu isugu nimi ciidamo ka soo goostay ninka Qardho iyo meelaha jooga ee Carre la yiraahdo ciidamada uu wato gaashaan la dhexe Ali Cabdi Saalax Ali Cabdilaqe waxay ku soo wareegeen ciidamada qaranka ee gobolka Badhan ee taliye Gure uu haysto waanu soo dhaweynaa gacmo furan baan ku soo dhawaada dalkeennii iyo dadkeennii baan leenahay markii hore waa khaldanteen oo waa la idin khalday khaladkaas ninka ragii waa ka soo noqdaa haddana waad ka soo noqoteen waan la idin soo dhaweynayaa dalkeennii iyo dadkeennii ku soo dhawaada waxaan halka isugu nimi inaan soo dhaweyno ciidanka uu wato gaashaanle dhexe Ali Cabdalla Saalax oo xabad liqa loo yaqaano waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin inaad ku soo noqotaan dalkiinnii iyo dadkiinnii iyo ciidankiinnii qaranka oo aad shaqo gashaan oo aad dalka u shaqaysaan waxaan leenahay dee qofku waa qaldamaa sidaa darteed Ali Cabdalla Saalax waa sarkaal loo baahan yahay waa sarkaal wax badan qaban doona insha Allahu xaggaasna dee hungada ay tahay isaga ka warbixin doona oo ka hor dhici maayo waxaan leeyahay waa mahadsan tahay taliye Cali iyo ciidamada la socda qoliyaha ku maqan oo wali la joogana waxaan leenahay dalkiina iyo dadkiina u soo noqda gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa halkan aan idin sugaynaa insha Allahu waxa weeye si fiican baanuna idin soo dhaweyn doonaa wada soo dhaweynaynaa sarkaalka iyo askartiisa Saraakilkana ku jirta aad iyo aad baynu mahadsan yihiin maadaama ay maanta dalkoodii dib ugu soo noqdeen iyagoo ku soo noqday dawlad qarankoodii Somaliland dib ugu soo laabtay aad bay mahadsan yihiin waana soo dhaweynaynaa iyaga iyo qaybaha kaleetoba waxaanu leenahay ku soo dhawaada gobolkiinii iyo dadkiinii dawladdiinii iyo dadkiinuna way idin rabtaa waana la idinku hambalyeynayaa soo dhawaada waajibaadka qaranka aad leedihiinna dhinaciina ayaad qaadan doontaan kelmadda ayaanu holaday waana soo dhaweynayaa waa Cabdiqaadir Kabaweyne warbaahinta qaranka Somaliland Erigabo